الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan jeclahay inaan waxyar ka iraahdo warka cusub oo ka soo baxay maxkamadda cadaaladda caalamiga International Court of Justice ee ku saabsan arrintii badda Soomaaliya iyo Kenya ay isku hayeen in dacwadeeda ay galayso maxkamadda. Aad baan u soo dhaweynaa go'aanka maxkamadda, waan ugu faraxsanahay. waxaan kaloo rabay inaan ku daro dalkan Soomaaliya waa dal madax bannaan oo sovereignty-giisa ama awoodihiisa isagu isu leh iyo mulkiyadiisa isagu isku leh, cidna ay faragelin ku samayn karin. haddii muddo ay burbursanaa macnaheedu ma aha in cid waliba ay ama iyadu dowladda Soomaaliya kuwa مثل ay ahaadeen ama cid kaleba ha isku daydo inay faragelin ku samayso inay tahay waxa la aqbali karin oo shacabka Soomaaliya aqbali karin, annaga oo madaxana aanan aqbali karin. anuu hadda waxaan ka ahay xubin aqalka sare baarlamaanka ka mid ah, senator baan ahay, anigoo ku hadlaaya magacayga iyo cidda aan ku maslaayaba aqalkaas oo Soomaalida inaanan sovereignty-ga u ogolayn cid soo farageliso. wax badan baa la sheegayaa faragelina dowladaha ama daris ahaadeen ama kuwa caalamka oo kale oo aan ku jirno ururada caalamka sida jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, midowga Afrika, jaamacadda carabta, ururka islaamiga iga inta waxaan dhowraynaa xuduudahooda iyo darisnimadooda hadday daris leeyihiin iyo inay u madax bannaan yihiin sovereignty-gooda maamulkooda. annaguna ma ogolin inay soo dhex galaan dowladahaas doorashada xasaasiga ah oo maanta aan ku jiro. waxbaa la sheegaya xildhibaanada Soomaaliyeed oo lasoo doortay oo waqtiga taariikhiga maraya maanta, waxaan uga digaynaa inayan faragelintaas ay ka digtoonaadaan oo ayan u hoggaansamin cid faragelin ku samayso hebel doorta dheh inayan dooran cidda yidhaahdaan doorta. waxaan kaloo uga digaynaa madaxda iyagu raadinaysa taageero dad kale ama mid dhaqaale ahaate ama mid siyaasadeed ahaatee inayan ku doonin madaxnimada Soomaaliya in cid kale ay iyada ku taageerto. Soomaaliya iskale cidday doorato waa madax ka noqonaysa, dadkeeda iyo dalkeedana iyadaa lahaanaysa, weligeedna lahaanaysa. annaguna waxaan ka mid nahay mas-uuliyiinta loo xilsaaray arrintaas inaan ilaalino. waana mahadsantahay.